ruusi lashaad baa lagu soo taagayaa wixii aad xaday iyadoo tuurta ku sido oo ay waliba qaylinayaan oo dadkoo dhami ku arkayo ku maqlayaan ayaa lagu soo taagayaa inta qiyaamaha banku dadku taagan yahay la xisaabayo de konton sanadood meelahaas la taagnaadaa qiyaamaha intaasoo dhan tuurtaad ku sidaysaa khalqiga ilaahay oo dhamina waa ku arkaya hadhowna naartii baa kuu dambaysa saa daraaddeed buu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wamaa kaana linabiyin an yagul waman yaglul ya'ti bima qalla yowma alqiyaama baa ilaahay ya'ti bima ghal wuxuu la imanayaa wixii uu khiyaamayey maalinta qiyaame banka isagoo taagan oo tuurta ku sida saa daraaddeed baa xadiidka saxiixaynka ku soo arooray wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam intuu tuuganimada xoolaa dadka dhaxaysa ka warramay oo aad u weyneeyey oo uu tilmaamay dembigeedu intuu leegyay ayuu dabeetana wuxuu nabigu yidhi laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa war hooy akhrayaan idan arkin maalinta qiyaame adigoo tuurta ku sita neef geel ayaan ku arkin buu nabigu leeyahay neefka geeloo reemaya ama dee cod samaynaya neef geela oo dhawaaqaya adigoo tuurta ku sita yaan idan arkin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam neef geeloo ololaya adoo tuurta ku sida ayaan ku arkin oo leh yaa rasuula allahi aghithni ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar leh faaquulu laa amliku laka shaya qad ablaqtuk nabigii naxariista badnaa ee aakhiro shafeecadiisu tirada badan tahay ayaa ku odhan doona maanta haddaad waxa kan xaday war hooyaan idan arkin buu yidhi idinkoo neef geela tuurta kaa saaran yahay oo neefku qaylinayo oo aad leedahay rasuul allow ii gargaar oo anna aan ku odhan doono laa amliku laka shay-an qad ballaqtuka waxba maanta kuuma hanto waa ku soo gaadhsiiyey aan leeyahay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxba yowma laa yughni mawlan can mawlan shaya ilaahay wuxuu leeyahay waa maalinta aan cidina cid wax ka taraynin nebi maxamed oo ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay rasuul naxariis badan inuu yahay laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim nabigaa ilaahay uu ku sifaynaya inuu naxariista badnaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa maanta odhan doona waan anigu waxba ku tari kari maayo anigu anigii ku soo gaadhsiiyey markaad dunida joogtay waxa uu nabigu tilmaamay haddana kuma dayninkaase laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaamati calaa raqabatihi farasun lahu xamxama waryaan midkiin arkin tuurta faras ku sida faras dhan baa tuurta ku sita neef geela tuurta ku sida neefkoo lahu xamxama waa codka sahiilka ka yar bay idhaahdaan adigu isna reemaya dheh faras dhawaaqaya adoo tuurta ku sita oo leh ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar waan ku odhan doona buu nabigu yidhi maanta laa amliku laka shayan adna waxba kuuma hayo qad ablaqtuk waan ku soo gaadhsiiyey markaasuu haddana nabigu leeyay laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi shaatun lahaa hugaa'un war la xiyaysa adoo tuurta ku sitan yaan qiyaamaha ku arkin buu nabigu leeyay oo le ii gargaar waan odhan doono waxba kuuma hanto waanigii ku soo gaadhsiiyey war qiyaama ayaan idan arkin buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam adigoo tuurta ku sida nafsun lahaa siyaax addoon ama addoomad qof bini aadam adoo tuurta ku sida oo le ii gargaaro aan leeyahay war kuuma gargaari karo oo aan ku leeyahay war waan ku soo gaadhsiiyey yaan arkin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam adoo tuurta ku sita riqaacun takhfiqu sida dadka la rabo maantan uu ilaahay u tilmaamaya in loo ceebeeyo mid calala dusha ku sita baa la yidhi laakiin maradu miyay aamusantay may nabigu wuxuu leeyahay takhfiqu sida calankay baboonaysaa way sanqaraysaa si dadku ku arko adigoo maryo tuurta ku sita maryuhu si ay babanayaan oo dhawaaqayaan yaan ku arkin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo le ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar aan ku odhan doono waar anugu laa amliku laka shay-an
waxba kuuma hanto waa ku gaadhsiiyey warkii waan ku soo gaadhsiiyey waryaan arkin buu nebigu leeyay idinkoo ta'aamusay tuurtiina saarantay waa fidada iyo dahabka bay culimadu yidhahdaan lacagta على كل حال حديث كان وحو تلمامية ما لنت قيامه قفكي مجاهد كصور نغضي هادو حاضو حوله ددك كدحيي دي كان مجاهد كهينا مركا محاضو مالينس هادو حاضو حوله ددك كدحيي قيامها يسوغو تورتا كسيده انو يسسو تاغي دونو oo waliba nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo oran doonaan waxba kuma hayaadiga هكا دول عيدو هكو دول ساراتو وخزي مالنتاسي وأمام الشهود أمام دادك هرتو دا لغوغو عيبينيا نارتينا وكو دنبايسا نارتينا ودنبايسا سيدة دراديد أحاديث باب كان قار كميدا إمام مسلم وحكوسا أروري في باب الإمارة إمام البخاري وحكوسا أروري محي في باب السير في باب الجهاد والسير محي تلماميسا إمام مسلم حب باب الإمارة وقوسا أروري بيلي وحودق يبيلي دادك مدحضة يدو حديثنا جهاد كوسا أرورتي أيو إمام مسلم وحكوسا صاري كتاب الإمارة بكوسا صاري سووت الماما مدحضو ينيتحي ساوغيد بنبي عليه الصلاة والسلام خولة الأنصارية با وحي لا ضحي وحن مقلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وله إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رقبا دوني دا مركي جوغان مالك ومضى حولها إلهي اسكرلوا بندون أبو نبي قولي والنار بكوا سلي أبو نبي قولي مالك قيامة إمام البخاري وحكى الله صاري عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يقال له كركرة نين كركرة الله يراهضه أيا ألابتي النبي قسيدي بيجري دبي تنور لنطي مركز النبي يقول هو في النار كركرة النار بقلية مركز الله باري بيجري دبي تنوح على قصوها مرة يروح هذي علماء المسلمين توحي لادان غلولكو توغدا سي خولها ددوينها لا حدا waxa ay leedahay noocyo tiro badan bay yiraahdeen koo waxa ugu horeysata inuu soo sheegnay ee faygiga qaniimada wixii laga xadaa oo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiska hore ku tilmaamayay kalla inni ra'aytu fi an-nar fi burda ghallaha wa 'abaa waxa kaloo kamid ah bay yiraahdeen dadka zakada soo ururinaya hadday wax ka qaataan oo ka xadaan nin la yiraahdo abi mas'ud al-ansari ayaa wuxuu yiri nabiga ay diray alayhi salatu wasalaam saaciya inaan zakada soo gura la diray dabeetana wuxuu ugu yiri intaliq aba mas'ud ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته ورد حولها الزكاة صوروا ربويري وهو يمك بابا ديري النبي محمد الله الله حولها صوروا ريو قيامها أيام كواركين بيدا أدقو تورتا كوسيتن في جيلة وات صدقة حكا حضي يعني قيامها أنا كواركين بالنبي وكيري صحابي مركزولي إذن لا أنطلق دي هدان قو حولبا ورورين ما يبيد الله رسول كيسيو نبي قلنا وحولي إذن لا أكره كوكو قصب مايو صحابة نقول حولي مرة دي آخر بس الله يسوكو قبصريو أنا قو حولبا شغضا إذا ماها صا ورورين ما يبيد نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحولي هدان كوكو قصب مايو حديث كابي داود بصو صاري إمام الألباني وحسن بولي